waxaynu ku jirnaa gabagabadii bisha barakeysan ee Ramadaan waxaynu foodo ku haynaa Ciidul Fitrida haddaba waxaa suuqa weyn ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland badiba soo buux dhaafiyay shacab weynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa saqiir iyo kabiirba isla markaasina u soo doontay inay ka iibsadaan agabka ciida iyo wixii la halmaala ayadoo aad loo sugaa ammaanka suuqa maalmaha ciida waxa wadooyinka iyo suuqyada la dhigay cutubyo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland si loo sugo ammaanka shacabka inay ka hortagaan wixii dhibaato u geenaya ammaanka wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Sareeye Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan ayagoo kormeeray sida ciidamada ammaanku u sugayaan suuqa ammaankiisa kadib markii uu soo dhamaaday kormeerka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ayay warbaahinta la hadleen ayagoo sheegay kormeerkoogani waxa uu daarayahay waxa hadaladoodii ka mid ahaa oo galabta ugu soo kormeeray howlaha ciidanka booliska ay ka hayaan bacdaweyna waaheen haddii xagga nabadgelyada tahay haddii xagga wadooyinka tahay sida ciidanka booliska caadada waxaan jirtay ciidaha iyo munaasabadaha kale si ay u ilaaliyaan ammaanka iyagoo ilaahay tala saaranaya waxaa kormeeranaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha howlaha ciidanka booliska shaqadooda waajibaadkooda qaranku u yimaday ee hayaan shacabka reer Soomaaliland iyo qaranka markaa kormeer weeye aan ku indhaynayno sida ciidanka booliska u soo socoto waxaana shacabka reer Soomaaliland u soo jeedinaya inay la shaqeeyaan ciidanka booliska sida ay horeba gacanta u siin jireen waxa kale oo gaadiidleeda u sheegaya iyo dadka wadooyinka xidha inay iska ilaaliyaan oo saxmad badan baa jirta waa ciid hadii la yiraahdo inay u hoggaansamaan awaamirta wadamarista iyo sharciga nabadgelyada wadooyinka taasaan oranayaa halkana waxaan ammaan uga diriyaa ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan ee gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo marnay barxaalaadka nabadgelyada iyo wadooyinka iyo ciidda dadweynuhu magaalada sida ay maxaanku dhahday u soo buuxiyeen inaan soo eegno aad iyo aad bay u fiican tahay sida xaqiiqada aad baan ugu mahadnaqayaa aadna waan u bogaadinayaa waanaan hambalyanayaa dhammaan ciidanka booliiska hawsha aad iyo aad fiican ay ka qabteen magaalada gudaheeda waa magaaladii hore waa cidhiidhi dadkuna maxaanku dhahday waa iidii oo ganacsi fara badan iyo iid iyo dhar iibsi iyo carruur baa meel walba maraysa waan hambalyanayaa ciidanka booliiska waxaan leeyahay iyadoo ay xilkiinnii qarannimo tahay haddana waxaan idinku hambalyanayaa sida aad iyo aadka u fiican ee ugu adeegaysaan shicibka taliyaha taliska iyo ciidamada oo dhan waa tanoo magaaladii waa la faaruqiyey gaadiidkii waa laga joojiyey gawaadhida u adeegaysa bakhaarleyda uun baa maraysa Cabdilqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame wararka telefishinka Badda Cas magaalada Hargeysa